assalaamu calaykum. 11 maalmood ee uu socday dagaalkii dulmiga ahaa ee Yahuuddu ku qaaday shacabka reer Falastiin ee Gaza. Markii lagu dhawaaqay xabad joojinta dabaaldegyo heerkoodu sareeya ayaa ka bilowday Gaza. Intii uu dagaalku socday waxaa ku dhintay ku dhawaad 300 oo qof. 189 dabaq ayaa lagu burburiyay dagaalkaasi. Hanti gaaraysana 300 milyan way ku qasaareen reer Falastiin. dhanka kale Yahuudda 10 qof kaliya ayaa ka dhimatay sida ay sheegteen. Guusha ugu weyn ee reer Falastiin gaareen waa intii weeraradu ku socdeen Yahuudda. Dhisma shub ay ku hoos jireen Yahuudda. 4 milyan qof oo ra'iisul wasaaraha Yahuudda ka mid yahay ayaa dhulka hoostiisa ku dhuumanaysa intii dagaalka socday. 11 maalmood oo uu dagaalka socday waxaa hoos u dhac weyn ku yimid dhaqaalaha Yahuudda. Waxaa istaagay dhammaan noloshii. Ma jirin wax nolol ah oo ka socotay guud ahaan dhulka dulmiga ay ku degan tahay Yahuudda. ganacsi waxbarasho iyo nolol kaleba ma aanay jirin. garoomadii ayaa xirmay. magaalo walba waxa ay marti u ahayd gantaale ay soo tuurayaan ururka Xamaas. waxaana fashilmay nidaamka difaaca gantaalada ee Yahuudda. reer Falastiin kaliya kuma guulaysan in dagaalku ay ka dhigeen laba dhinac. sidoo kale waxa ay door weyn ku lahaayeen go'aanka dagaal joojinta. waa markii ugu horeysay oo Yahuud ay awoodi weyday in dagaalku kaligeed ay bilowdo kaligeedna joojiso. ra'iisul wasaaraha Yahuudda ayaa ku dhawaaqay inay joojiyeen saddexdii arrimood ee uu marka horeba dagaalku ka bilowday. maxkamad ku sheega gacanta ku haysay kiiskii guryaha Falastiiniyiinta laga rari lahaa ee xaafadda Sheekh Jarraax ee magaalada Qudus ayaa la joojiyey. joojinta socdaalkii dheeraa ee xuska dabaaldega maalinta Qudus, xuskaas oo ay Yahuuddu samayn jirtay sanad kasta. waxaa kaloo joogsaday bulshadii Yahuudda ee booqanaysay masjidka Al-Aqsa.